waxa uu ahaa socdaal isugu jira nasasho iyo weliba dhirbeeris oo qaar ka mid ah bahda malcab ku tageen dhulka barwaaqada ah ee deegaanka Dhaboolo galbeedka magaalada Hargeysa. waxaanu xilli casarnimo ah ka soo jarmadnay magaalada Hargeysa anagoo u soo jihaysanay deegaanka Dhaboolo oo uu socdaalka iyagu ahaa gaar ahaan beerta Maxamed Shiil. intii aanan soo gaadhinba deegaanka aan u soconay waxa dhexda nagu sii helay daruur roobeysan oo kamid ah nimcooyinka Alla bixiye ee bini'aadamku ku xamdi noqo mid kamid ah. ku naso oo ka naso wararkii ciyaaraha ee maalinlaha ahaa oo ay bahda malcab kugu soo gudbin jirtay si maalinle ah oo ku yaranaso deegaan u roon indhaha iyo deganaanshaha maskaxda. waxaanu markan booqanay meelaha biyo durdurka ah ee roobku biyo dhigay intii aanu ku sugnayn socdaalkayaga. eegmada indhaha, deganaanta maskaxda iyo weliba codka ka imanaya shimbiraha caynbacaynka ee deegaanka Alla ku kaladay markay isku ka biiraan waxaad dareemaysaa deganaansho weyn. shaqo dhirbeeris iyo weliba nasasho xoogaa ah markii aanu ku guda jirnay waxaanu u kacnay dhanka iyo inaanu karsanashaa iyo weliba inaanu miirano liin kamida liimihii ka baxayay beerta gaar ahaan deegaankan aanu booqanay ee Dhaboolo galbeedka magaalada Hargeysa. mar haddii ay nagu soo dhowdahay bishii Ramadaan ee sanadkan 1440 iyadoo maalmo kooban oo kaliya ay naga xigaan curashada bisha Ramadaan waxaynu Alla ka baryaynaa inuu inagu simo inagoo nabad iyo caafimaad qabna sidoo kale Allaha inaga yeelo kuwii ka faa'iideysta bishaasi Ramadaan ee maalmaha kooban ay naga xigaan. nasasho iyo weliba xoogaa shaqo dhirbeeris ah kadib waxaanu bilownay in aanu ku soo guriyo noqono caasimadda Hargeysa oo awalkii hore aanu ka soo jarmadnay. intaanu jidka ku soo guda jirnay waxaa mar kale dhexda nagu helay daruur roobeysan xilli aanu roobka oo socda ku soo guda galnay magaalada Hargeysa. Axmed Taye Qaran, Cabdirashiid Dhamac, wararka malcab, magaalada Hargeysa.